بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وخضر محمد جهير هذان أوجله بالستاتستكس كأقوانت statistics وح أي تهاي statistics وكلمة إنجليشة سيدا ده بقى أقوانت statistics كلمة ده الله استعمالها أنت بدن واحد بدين statistics سواء على حان كلمة ده بدن إن أنا الله سمين مقع بحين بقى لقيا بقى ساد رديد عن كلمة بدن إنجليش استعماله statistics هو حويا إن لا صورورية حق تاس waxay noqon kartaa xog waxbarasho xog dhaqaale xog caafimaad xog in xog la soo ururiyo xogta la kala dhigdhigo iyadoo la isticmaalayo hab xisaabeed iyo barnaamijyo kombiyuutar dabeeto xogta loo soo bandhigo si dadku fahmi karaan iyadoo la isticmaalayo graphics ama tables oo la isticmaalayo hab dadku fahmi karaan dabeeto xogta la raadiyo xiriirada ka dhaxeeya xogta dabeeto xogta iyadoo laga qiyaas qaadanayo la sameeyo wax la yiraahdo projection ama forecasting mustaqbalka xogtaasi waxay noqon doonto tusaale aan soo qaadanaya imika waxa doonaysa waxbarashada dalka tusaale ahaan marka hore waa inaad ogaataa ardayda waxbarata dalka waa inaad xog ka soo ururisaa xogtii waa in la analyze gareeyaa biyadoo la isticmaalayo hab xisaabeed la isticmaalayo dabeeto waa in la qiyaasi karaa mustaqbalka 10 sano ka bacdi ama 5 sano ka bacdi arday intee leeg badalka soo waxbarashada in soo galaysa ama se dadkan imika waxbarashadani mustaqbalka maxay u baahan karaan in mustaqbalka la projection loo sameyn karaa oo baahiyahooda la eegi karaa oo qorshe loo sameyn karaa oo waxa kamid oo kale tusaale ahaan in population kaaga aad characteristics ogaan karto dabeeto aad qiyaasi karto mustaqbalka intay noqon karaan population kaaga qiyaas ahaan inuu noqon karaa age kooda kala duwan intuu noqon karaa sex kooda male kooda female kooda intuu noqon karaa deesadeed baahiyahooga maxay noqon karaan dabeeto aad isweydiin karto hadda dawladda loo isticmaali karo qorsheeyo in wax lagu qorsheeyo loo qorsheeyo waxa la isweydiin karaa statistics ka yaa dhigan karaa statistics waxa dhigan kara qofku dadku way ku kala wanaagsan yihiin aqoonta marka qofka dhigan kara statistics waxa weeyaan qof aqoon ahaan ka dhisan xisaabaadka waa qofku inuu xisaab ahaan ku wanaagsan yahay oo qof dhisan yahay qofku waa inuu computerka wax ka yaqaana oo ka dhisan yahay at least computerka wax ka yaqaana xisaabtiisuna dhisan tahay qofkaasi ayaa dhigan kara statisticska qofka statisticska bartaa muxuu ka shaqeyn karaa bay isweydiin leh muxuu qaban karaa adduunyada inta badan dal kasta waxa uu leeyahay waxa la yiraahdo Bureau of Statistics ama qayb u qaabilsan xogta dalka inaga oo yar tahay waxa jirta wax la yiraahdo Department of Statistics oo ka tirsan wasaaradda qorsheynta laakiin dalkeenu hadduu horumaro waxay noqon doontaa qayb madax bannaan oo u qaabilsan dalka statistics qaybta waxa ka shaqeyn doona kumanaan qof oo statistics haday noqoto qaybtii beeraha xogtii beeraha helaysay iyadoo indicatorskii isticmaalaysa iyo standardskii adduunka qaybtii xagga economiga GDP-gii inflation rateskii CPI-gii national accounts-kii soo saaraysay qaybtii ka shaqeynaysay xagga social statistics haday noqoto surveyadii si joogta loo sameeyo jira adduunka waxa kamid demographic health survey fertility survey labor survey ayaa kamid ah iyo surveyada kale household surveys ka loo adduunka ayaa inta waxyaalo la sameeyo ay qaban doonto qaybta social statistics qaybtii deegaanka marka kumanaan qof baa ka shaqeyn doona qaybta Bureau of Statistics qofka ka baxa programka statistics waxa uu ka shaqeyn karaa research organizationska
ama research companieska ayuu ka shaqayn karaa oo aan la'aantood ka shaqayn karin haddii la'aan qof statistics laan waayo statisticsku waxay lagu bartaa oo ay awoodda saartaa techniqueska ama methodska data lagu analyze gareeyo ee loo kala dhigdhigo marka qof research companieska ma shaqayn karaan haddii aanay haysan qof statistician oo statistics ka bartay waxa kale qofku ka shaqayn karaa national and international companieska haday noqonaan companieska dalka iyo kuwa internationalka labadaba oo ka shaqayn karaa qodob kasta waxa isticmaalsaa xogtaan waxa loo baahan yahay idii analysis ku sameyn lahayd ee soo bandhigi lahayd ee ka dhigi lahayd xogtaasi xog lagu go'aan qaadan karo oo qorshe iyo plan iyo development lagu sameyn karo waxa kale oo ka shaqayn karaa qofka statisticska ka soo baxay hay'adaha caalamiga uu shaqayn karaa waxa uu ka shaqayn karaa local choice ku shaqayn karaa waxa uu ka shaqayn karaa bangiyada uu shaqayn karaa oo xog bay markasta oranayaan waxa uu shaqayn karaa insurance companies ku shaqayn karaa meel kasta waxa la oran karaa fiilka statisticska meel kasta way u baahan tahay nin statistician waxa uu yiri hadda doonayso even if you want to marry statistics may help you hadda doonayso macna inaad guursato statistics way ku caawin kartaa marka waxa weeyaan macnaheedu statistics hadda dukaan haysto dukaankaaga statistics inaad kaga shaqeyso ku apply gareyso u baahan yahay meel kasta qofka statistician uu ka shaqeyn karaa qofka statistician ka hay waxyaabaha uu yeelanayo ee looga baahan yahay ee marka programka dhameeyo uu yeelanayo waxa kamid ah qofku inuu noqdo qof yaqaana techniqueski methodski hababkii daatooyinka loo analyze gareyn lahaa ee loo kala dhigi lahaa ee daatada loogu soo bandhigi lahaa daato loo isticmaalo for planning and development qof reasoning le technical reasoning le buu noqonayaa qof mathematics ka xisaabaadkiisu dhisan yihiin buu noqonayaa qof programmada statistics si fiican u yaqaana programmo jira statistics daatooyinka lagu analyze gareeyo qof si fiican u yaqaana ayuu noqonayaa qofka statisticianki wuxuu noqonayaa qof sameyn kara sampling-ka wax la yiraahdo in population badan in yar oo meteli karta population-kii kale ka soo qaadan karto oo methodskii iyo habkii loo dooranayay qaybta garanaya qofka statisticianki wuxuu noqonayaa qof yaqaana design survey designska waxyaabo la yiraahdo iyo census designska qof yaqaan buu noqonayaa qofka statisticianka programka ka baxay wuxuu noqonayaa qofka dhisan xagga demographiga waxa la yiraahdo ama change-ka ku dhacay isbedelka ku dhacay population-ka qof analyze gareyn kara haday noqoto population isbedelkaas haduu noqonayo xagga size-ka ama kororka ay population ku korayso ama hoos u dhacayso ama xagga structure-ka oo in ages-ka population ku kala bataan qayb badato qayb yaraato ama xaga distribution ka inay population qayb meel ku badato waxyaabaha inuu analyze gareyn karo qofku reasoning gareyn karo ayuu baranaya qof ka dhisan buu noqonayaa ugu dambeyn waxaan qofka statistician-ka ahi marka qofkan programka statistics-ka bartaa muxuu master ahaan ku sii diyaarin karaa muxuu sii dhigan karaa bay la isweydiinaya qofku marka uu ka baxo fiilka degree-ga koowaad ee statistics-ka uu dhigto wuxuu master ahaan ku diyaarin karaa fiilal kala duwan oo statistics-ka qaybaha kala duwan ayuu ku sii diyaarin karaa waxa kamid ah applied statistics oo xagga programmingska iyo applied statistics-ka uu sii dhigan karo official statistics baa jira oo dhigan karo demography buu dhigan karaa oo ku qaybta demographiga fertility mortality immigrationska xusaysa ama isbedelka population ku dhaca analyze karaysa ayuu baran karaa econometrics oo qayb aad u muhiim ah statistics kamid ah ayuu dhigan karaa mathematical statistics buu dhigan karaa qofkaasi fields-ka kale laftigooda economic oo kale wuu ku sii diyaarin karaa master thesis wuu ku sii diyaarin karaa marka fields-kaas ayuu qofku ku sii diyaarin karaa noqonaysa ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynayaa fiilka statistics-ku waa fiil dalkan iyo dadkan aad ugu baahan yahay intaasaan ku soo gabagabeynayaa aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.